بهاي أطاي عبد حكين آد بكو سلامة يا شير قراي فيديوغا حوغا بان تورتوريناي جروبيدا يغو تورتورا دراويش لاغو وردي ويا دي قاسيادا the sole, and the sole. Jadi darawish lagu irdi, oh ya dige siada ibadale dashay. Mad sinit. Sole, and the sole. Sole and the sole. Gaviava walagare. Tortura وقت الدنبيتها. كارثية صاحبة يا أركانه. كل الرأي ربوع بوردان بارو ملايين يا ساعد الرأي مريكان كاسوتش ده بري بأركايان هلك التاريخ لوين هور الله قرأي تالح ما هي المامي كارو تالح ما هي المامي كارو التاريخ لوين هور الله قرأ ما هي الماميكار رحيمة ورمضح سرا سوق الشيء والريوم مضح سرا سوق الشيء ورواك السلام مضح سرا رحيمة أكرم إنابتي سلام سرا آد بلدي وضع السلام يا دمانتي سيتي مفيعنتي قبتي تورتورة أو شير قراية أو أوجية صاحب بضي رأي مريكان كوكاس رحيمة ويسو تشيدا لكن وحوي صاحب بضي رأي ربا هردان وملاينا يا رأي صوماليا وهردان تورتورة وقت الدنبئيتا أنا حتى وحن ربعين عن ساحضو لكن سوحن هرواي I love you رحيمة أكرم تيد عاشقية الليلة إيو محمد حالنا إيو ليلة آذن إيو محالة دهايتو إلهي كوم الدرنا وحاو تشيدا قالي سليبان إيو دمانتيون I love you آويان كلو تشيدا صحابتي محمد عبد الله على آذن إيو كلتون بوتان إيو حاجي نفا دمانتي وايد السلام سلام سران إذا سلام يا سلامة قبتة إذا سلام يا دمانتين جروبيا لا لغو شير قرايا إلا كنت جروب كو شير قرايا سيدي وقارتو داد كان كهلايو أما أنا لهلايو جيسيد آد بان كو سلامي آد بان كاقا قنعين يا قنعية أساسي إنا دير معان آد يا آد رير سول رير سراق إيو آد بان إذي تشعلا اللافيو waxaan idinka dugsadaa sayid cabdulla xasan iyo cali miraan idinka dugsadaa aad baan idin salaamaya waxaan rabaa inaan idin salaamo dhammaantiin maadaama aan waqti dambe ii tahay waqtina aanan haynin oon rabo inaan aan idin soo gaarsiiyo waxaan rabaa inaan ka hadlo aadna waa u yeertihiin waxaan rabaa inaad gruubyada gaarsiisaan hadda aad awoodaan taasaan idinka codsanaya yaasiin warfa aad iyo aad baan in adeer macaan kuu salaamaya aad iyo aad baan kuu jeclaa soo dhawow in adeer macaan caaisha ciise in adeer soo dhawow aad baan kuu salaamaya in adeer macaan boqor hanad boqor jaamac aad iyo aad baan in adeer macaan kuu salaamaya dhammaantii waa idin salaamaya ilmaadeeraday iyo tolkay iyo saaxiibaday iyo ehelka iyo dariska iyo qaraabada iyo ummadda Soomaaliyeed ee soo gali doonta ee fiirsan doonta gadaal ka fiirsan doonta dhammaantiin waa idin wada salaamay I love you
soomaaliya ha noolaato ha israacdo ha midowdo insha allah boqolkiiba sheer ayaa inoo ballan ah in adeer macaan boqor hanad boqoro sheer garay in adeer macaan guulayso waxaan rabaa qanciye ssc in adeer macaan thank you I love you waxaan rabaa inaan aan idii bilaabo sheekada ilma adeerayaal waxaan rabaa odaga cabdi xaashe inaan ka hadlo oo ay u jawaabeen nimankan la yiraahdo magacooda xildhibaanada isaaq iyo gadabiirsay kollay dhulbahanta iyo warsageli kuma jiraan ayaga waxaan u malaynayaa in laga soo dooran doono Buuqland saasaan jeclahay saasaan u malaynayaa sidii lagu heshiiyay saasay ahayd baan u malaynayaa Buuqland in laga soo dooran doono laakiin isaaq iyo samaroon iyo ciise weeye waxa cabdi xaashi uu rabo in uu yiraahdo anaa soo dooranaya ilma adeerayaal ayagaan ku horeysiinaya codka shigshigow iyo luga dheere Buuqland ha waa ugu dambaysiinaya ilma adeerayaal waxaan rabaa waa ku salaamay in adeer macaan aad iyo aad baa ku salaamaya axmed maxamed aad iyo aad baan ugaas ku salaamaya salaan sare waa ku tuuray leeyla aadanteed caashiq I love you aad baan ku jeclahay haba macaan hooyaday walaasheed I love you aad iyo aad baan ku jeclahay waan ku ogahay inaad meel walba ku tuuraysid gob baa tihiin kor buu u kacay waa u jeedaa laandheere ilaahay baa tihiin intaas markaan aan ka soo dego waxaan rabaa inaad idii sheego qofkii igala qayb qaadanaya 2 iyo 3 waa soo qabanaya waxaan rabaa inaan ka bilaabo cabdi xaashi xaajiyow xasan nuur aad iyo aad baa ku salaamaya waxaan u baahanahay cabdi xaashi odaga la yiraahdo odagaas aniga waxa uu qaba jiray oday raba inay Soomaaliya midowdo ma fahmaysaa oo Soomaaliya mid noqoto oo Soomaaliya u jooga inay Soomaaliya mid noqoto laakiin odagaasi wuxuu u joogay Soomaaliya inuu kala wado basaas Muuse Biixi u joogu ahaa mid kalaan ogaaday jifada Muuse Biixi inuu yahay ogaaday jifada Muuse Biixi fiiri Soomaalidu qabyaalad iyo maxaan ku dhaafar 25 bay wax ku qaybsataa jifada Muuse Biixi waqooyiga Soomaaliya bay xoog ku haysataa ayadoo laangaaba beenidii ma sheegayo jifada Muuse Biixi waa laangaab markaan ku leeyahay laf weyn ma qabiil badan ma aha jifa badan ma aha isaaq waxay ku dhaxyihiin boqolkiiba waxay ka yihiin 0 xoog bay ku haystaan magaalada Hargeysa ma fahmaysaa iyo maxaan ku dhahay dhulkii waqooyiga ayaga xataa markii Siilaayo nin gabar ayaga abu qabi jiray Siilaayo xataa markuu meesha haystay xoog bay ku haysteen way kufsadeen gobolada waqooyi way kufsadeen wayna dhaceen wax alla wixii macdan dalay takada barbaran ayaga gatay waana dadka raba inay Soomaaliya kala gooyaan period beenidii ma sheegayo waana boqolkiiba 0 bay ka yihiin saaq dhexdiisa Soomaaliland warkiisa badaa boqolkiiba 0 anigu de odaga si fiican ma aqoon oday Soomaaliyeed oo muslim ahaan u qabay muslim wuu yahay oo anigu meel ku gaaloobay ma arag laakiin oday wadaniyahan u qabay laakiin ma aha markaan sii waraystay xataa isaaq dhexdiisa waxay ugu dheen waajifada Muuse Biixi ee wareersan xaajow xasan nuur oo aad baa ku salaamaya ilaa odagu meesha Muuse Biixi buu u jooga Soomaaliya wuxuu u joogay inuu Soomaaliya lu gooyo Muuse Biixi buu wakiilka ah war waxaa soo galay garaadkaygii ugaaskaygii weelkii Ciise Riyoole ee gobta ahaa ee laandheeraha ahaa ee ilaahay sharfay ee sharmaarka shariif ee waxaan ku iri ka yimid meeshaan la yiraahdo Yombays horta miyay ahayd meeshaad ka timid ariga ku raaci jiray in adeer ma Yombays bay ahayd waa ku salaamay in adeer sharmaarka shariifo I love you aad iyo aad baan ku salaamaya salaan sare Shamse Xuseen aad iyo aad baan ku salaamaya waxaan u baahanahay marka cabdi xaashi raciimay maxaad ku qoslaysaa wiilku waa Ciise Riyoole ya ilaahay baa qabiilada naga dhigay ya wajacalna waxa la yiri waa shucuub iyo qabaa'il baatiina isku garta isku xumeey in la isku xumeeyaa la diidayaa in la isku garta waa la ogolyahay ya waan adeerkay weeye Ciise Riyoole ya laandheere ilaahay
soo dhawow in adeer garacad maya garacad ma yombays wey yombays buu iyo ayl ya aad iyo aad dangorayo odayga weligiis waa lagu dhaganaa war in adeer shamsoy 2 iyo 3 qof baa soo qabanaya arrintaas waa igala qayb qaadanaysa 3 arrin baa soo dhigaya iyo adinku ra'yigiina ka dhiibta seed u aragtaan warama shafti baan lahaa in adeer maxaa tiri shifti baan lahaa halkaasna idin ka maqlayay in adeer ma shifti baan lahayd waa ku salaama sana chief buu ka yimid baa malaynaya in adeer waa ilaahay ha ku barakeeyo shaqadaada sharmaaka shariifo waxaan rabaa odaga inaan u sheego adeer Soomaaliya 4.5 markay tahayna isaaq waxaad ka dhextaa 0 markii ay tahay maxaan ku dhahay mas'uul laga noqdo dadka isaaq iyo gadabiisay iyo ciise mas'uul in laga noqdo ay tahayna haday tira noqoto waxa ka noqonaya ninka ugu tira badan waana ninka garxajis haday ay noqoto tiro ninka garxajis baa isaaq mas'uul ka noqonaya xamar jooga waana ninka ra'iisul wasaare ku xigeenka haduu asagu ka noqonayna madaxweyne farmaajo ka noqonaya heer state-kii maadaama ay Somaliland ninkii madaxda looga dhigay uu sa joogin magaalada Muqdisho uu soo ogolayn inuu yimaado burcad badeed yahow odaga waxay sheegayaan adeerkay maxaan ku dhahay jooga maxaan ku dhahay meeshaas xamar sababtoo mas'uul kama noqon kadib isaaq adigu waxaad ka dhex tahay 0% adeer 0% majority leaders minority أنا كل شيء إمسح اللي بان بقول لذين شفدينه عبد حاشيو إساق نحديسه هدي أي 4.5 نقطنا ده عيسية قرب بيرسايا إسكاب مسؤولة هدي أي نقطة محنكونا مسؤولية دي لقى قادنا ده هير ستيت كيبا تشوغا مدحوينيه قرن كاتشوغا ما دام أي مامول قبلات كديدين إنه مسؤول كان نقلان دادكودي أجا ما هذه قدر قوليد وصلدنا دي عيدا قرحتشيس هيغو لوما باهنا maalin dhawaytana waxa maqlay odagii ahaa magaciisi odagii ahaa ii sheeg magaciisi Faisal Faaruq waayahan dambe odaga far baa ku godnayd absolutely boqor hanad absolutely ilaahay ha ku daayo allah ha ku sharfo ilaahay ha ku daayaan ku iri hadaad wiil yar tahayna eedo ilaahay gabar fiican ha ku saalo hadaad nin weyn oo caruur la tahayna ilaahay waxaan ka bari caruurtaada iyo xaaskaaga allah ku barakeeyo guulayso war gaarsiiya waa runtiisi sheer gareey ilmaade reeyal waa la sheer gareey libaaxiyaatiina maxamed cabdiyo aad iyo aad baan ku salaamaya ugaas salaan sare heego hawaar iyo aranjan absolutely waxaan idin sheegayaa Faisal Maafiya wuxuu yiri diray fiiriya meesha waxa la rabaa Soomaaliya in la lugooyo dirtu waa kuwii qadaad weyn loo baxshay waa kuwii wala weyn loo baxshay Faisal Cali Waraabe markuu Hargeysa jooga wuxuu dhaa wiilka harar jooga maxaan ku dhahay Etoobiyaanka aad sababa jooga baa wiilka Muqdisho jooga iga xiga buu dhahaa markuu Hargeysa joogo wuxuu dhahaa xamar qaraxyadu inay ka socdaan waa guusha Somaliland iyo si itiraaf ku heli lahayd maanta wuxuu rabaa Soomaaliya inuu dumiyo oo nin badaha gata oo takadaha gata la soo saaro sheeka dir la yiraahdo la yimi Siciid Saleebaan aad iyo aad baan ku salaamaya si ay Soomaaliya u kala daadato oo inta yar oo farmaajo u dhoodhoobay ay u kala daadato oo ay u sii gadgataan oo ay u kala gooyaan wuxuu ku dagaalamayaa oo maanta la soo istaaga banaanka wax dir la yiraahdo shalana wuxuu lahaa dir waa qadaad weyn wiilkayaga ku dhashay nabadda wiilka xamar ku dhashay qaraxa ku dhashay amisoobta ku hoos dhashay inay isla tahriibaan oo isla dhintaan aad iyo aad baan laga xunaa Faisal Fataal waa kiisaas lahaa odaga Cabdi Xaashana wuxuu ku hadlaa afka Faisal Fataal nimanka xamar joogana canshuurta qaranka Soomaaliya waxay u qaataan shacabka reer Koonfureed canshuurta u siiyaan midnimada Soomaaliya inay ka shaqeeyaan not inay ka shaqeeyaan kala goynta Soomaaliya sababta xamar loo keenay oo canshuurta loo siiyo oo ayagoon canshuur laga qaadin dadka shacabka ay reer Koonfureed ay canshuurtooda u siiyaan oo dhigooda ugu hureen oo ay amaankooda u sugaan waa inay ka shaqeeyaan qarannimada Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed not kala goynta Soomaaliyeed Cabdi Xaashiyo dhagahaaga fur
xildhibaanada Soomaaliland waa sharci ahaan maamuli kara dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dalka absolutely maadaama aysan maxaan ku dhahay aysan ogolayn midnimada Soomaaliya uu soo ogolayn Muuse Biixi madaxweynaha qaranka ka mas'uula meeshii Muuse Biixi uu ka baxay madaxweynaha qaranka ka mas'uula tan labaad odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee joogta magaalada Muqdisho ee waqooyi waa inay doortaan doontii berbera ayay celiyeen qaxootigii yaban ka yimid u yimaaday galiya ka soo jeedaan ma iloween absolutely marka adeer Cabdi Xaashi oo labada jeerba mas'uul kama noqon kartid ana ku sheegay Muuse Biixi oo adeer aad u tahay oo maxaan ku dhahay tabar awalaad islatiin oo jifo hoose aad islatiin oo dhibaato ku haya beeraha Soomaaliland ama gobolada waqooyi dil xarig dhac مسافرين محنكونا كفسي انتاس بكوهايا قدومين انتاس بسكوكو دراي ولي مانا تشفوينك اقولان ديريسان حبسي اوفراي حبسي قرحاتش سوفراي او ادير اوتاي موسى الصبايط وحوي اومتاقي كديد وحكما سو قادي كديد لما هادلي كديد سيب مسؤوليات وقادي كنا ياد مسؤول كتا تراكو ما تلك dadkii oo boqolkiiba 0 baad ka tiin Soomaaliland boqolkiiba 0 ka tii jifadaad ka tahay seed ku matalaysaa marka haday saro ku wakiilan oo Muuse Biixi ku wakiilan hadii uu diiday midnimadii Soomaaliyeed hadaad jifadiisi tahay oo adeer u tahay reerii ugu tirada badnaa oo xildhibaanada Soomaaliya isaaq oga jirana dawaaha garxajis isii samaroon de mas'uuliyadooda ma qaadi kartid yaa ku dhiibtay mas'uuliyadooda marka nimanka u soo jawaabay oo waliba saaqa oo jifadiisa ah oo aanu kala haray idaacada kibirreeyay qofkii ka yar ha seexdo aniga idaacad kibirkeeda qofkii idaacada kibirkeeda waxa weeye waa sharmaarka shariifkayga caashaq laandheere ilaahay baana aad iyo aad baan ku salaamaya qaali yaa 18 sano wixii ka yar ha iska seexdeen dhikar yu ku dhicina marka waxaan u baahanahay Soomaali Nabi Maxamed waxaan u baahanahay in maxaa la dhahaa aan idin sheego Cabdi Xaashi aqalka laga saaro Hargeysa aada sida Umar Carte la samaxay absolutely sheerna alla shaydaan ku yaale absolutely sheer garayeel maadeeraya waa waqti dambe waa fahmaya reer Yurub ma soo jeedaan waa reer Afrika waa hurdaan reer Mareykanka soo jeeda waa reer Mareykanka oo sheer garay adoogin iyo awogin alla janeeyay waxa u baahanahay kibirka idaacada la dhageysto waxa u baahanahay Soomaali Nabi Maxamed Cabdi Xaashi inuu iimaankiisa gadaal u ceshado shalay hadii uu Muuse Sabaayad soo magacaabi jiray aad iyo aad baan ka qaadamay baby hadduu soo magacaabi jiray maantayto ma soo magacaabi karo inuu dhinacna ka yiraahdo Soomaaliland baan nahay oo Soomaaliya ma jirto oo nimankaas nima matalaan dhinacna ka soo magacaabo xildhibaanadii qasi lahaa Soomaaliya oo sharciga jabin lahaay oo qaraxyada ka shaqayn lahaa ka soo magacaabo waa diinay nin farmaajo la yiraahdaa yimid waxaasna ma ogola nin hurda ma waa nin soo jeeda Cabdi Xaashi waa oday beeshin arintaas waxaa mas'uul ka Mahdi Guuleed iyo inta dawladda ku jirta iyo madaxweynaha Soomaaliya waa lagu soo heer state-kii waa aabihii Soomaaliya maadaama ay Muuse Biixi uu diidan yahay inuu doorashada wax ka galo madaxweynaha qaranka mas'uulka waxaana soo doonanayo odayaasha jooga koonfurta Soomaaliya iyo dhalinyarada iyo shacabka jooga maxaan ku dhahay beelaha iska soo jeeda dooranaya 100 qof iyo kow lagama waayo maxaan ku dhahay guddiga khilaafaadka iyo maxaan ku dhahay tan waxa magacaabaya golaha wasiirada iyo maxaan ku dhahay madaxweynaha si wada ogal iyo waliba xildhibaanada for Caynaanshe absolutely xildhibaan Caynaanshe wiilka saldarada Caynaanshe Sugulle Nuur Daahir yaa wiilka saldanada oo ogaasyadii garxajis
habar yoonis libaaxa wadaniga ha u codeeyeen boqolka iyo kowga qof la soo dooran doono laga soo xuli doono magaalada muqdisho ha u codeeyeen caynaansho ha u codeeyeen taasaan leeyahay oo ha u codeeyeen dhalinyarada wadaniyiinta raba wadanku inuu midoobo dhalinyarada maxaan ku dhahay wanaagsan gabdho iyo wiilalba odayaashan beeshinka muuse biixi uu soo dirsaday raba dalka inay kala gooyaan dib dambayaan baarlamaanka loogu soo celin qaraxyada ayagaa ka shaqeeya tikadaha la gadanaya ayagaa ka shaqeeya dhibaatada ayagaa ka shaqeeya waa in loola diriraa sida balaayada loola diriro muqdisho nabad bay noqotay qaraxyo iyo oohin iyo agoon iyo gablan joogta way ka raysatay nimankaasaana ku waday ha laga cesho nimankaas dib dambanayay ugu soo bixin baarlamaanka caynaansho ha la doorto aqalka sare kursiga cabdixaashi waa qalaas caynaansho ha laga dhigo guddoomiyaha aqalka sare absolutely dhalinyarada wadaniyiinta isaaq iyo gabdhaha wadaniyiinta wiilasha wadaniyiinta ha la doorto oo dugsi sare ka soo baxay oo muqdisho jooga kuwa kaleeto dawladda la shaqeynaya 4 sano dawladda maxamed cabdullaahi farmaajo nin kastoo la shaqeeyoon mucaarad ku noqono isaaq ama dhulbahanta ama warsangeliya ama ciise ama samaroon reewaqooyi waa in dib loo soo ceshaa sababtoo ah ninkaas waa wadani sababtoo u leeyahay ma taqaanaa farmaajo ma ogola dalku inuu kala go'o nin kastoo reewaqooyi oo la shaqeeyayna waa nin wadaniya kastoo ka soo horjeesto reewaqooyina waa nin raba inuu wadanka kala gooyo marka kaas yaan la soo celin waa in la iska ilaaliya aamina daahir aad iyo aad baan kuu salaamaya ku aadin xaqa absolutely cabdixaashina waxa weeye nin kala gooynta dalka u ololeynaya canshuurta dadka reer koonfureedna qaata waa cadowga ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu la jaal yahay dadka ka soo horjeeda midnimada Soomaaliya waana Muuse Biixi iyo Faysal Faaruq labadaas waxay ka soo horjeedaan kala gooy midnimada ummadda Soomaaliyeed waa garxajis habar yoonis absolutely waa ogahay waa habar yoonis waa saldanadii guunka ahaydee reer caynaanshe waa la yaqaanaa waa reer caan oo saldanad xasan caynaanshe si fiican baa u garanaya ma fahmaysaa marka waxaan u baahanahay ummadda Soomaaliyeed anigu Soomaalida si fiican baan u kala garanaya Muuse Shaani reerkiisu waa reer raba inay gumeeyaan reer waqooyi inay kala gooyaan ummadda Soomaaliyeed jifadu ka dhashay waana odagaasa ka dhashay cabdixaashi lagu leeyahay odagaas cabdixaashi reerka garxajis la dhaana gabigoodaba xabsi bay ku gureen iyo reerka la dhoo ciida gale yaana dhihina ii sheeg ayuub iyo tolcecla iyo waxaas oo dhan xabsi bay ka buuxaan waliba reerka garxajis la dhoo saldanada oo 99% ka reerka isaaq waa reerka ugu badan uguna dhul badan xabsi baa lagu wada gura bigruundo of waxa la rabaa wadanka Soomaaliya in la kala gooyo dhulkoodiina lagu gumaysto lagu xukumo ayadoo minority laga yahay mana soconayso habar yaraad ba ku salaamaya Aamina Daahir intaas waa intaas oday cabdixaashi marka waxaan leeyahay Faysal Faaruq iyo adiguba wallahi bina koob shaaha dambe ka laqayn inta farmaajo jooga ana idin sheegay koob shaaho dambe kama laqaysaan Soomaaliya farmaajo haduu 4 sano wuu soo noqonayaa haduu tagoona wuxuu oga tagayaa dhalinyaro isaaq oo hawiye oo daarood oo jareer weyne oo reexamar oo dir oo maxaan ku dhahay gabooye oo wadaniyiin buu kaga tagi doonaa dalka Soomaaliya ayaguna u dhiibaya gacanta u gelinaya oon ogolayn dalka in la kala gooyo oon ogolayn in la qarxiyo dadka Soomaaliyeed oon ogolayn in maxaan ku dhahay shacabka Soomaaliyeed la baabi'iyo kuwaas oga tagaya 4 sano kadib deeqaf inaadan aad iyo aad ba ku salaamaya ogow cabdixaashiyow dib dambeeta waa idinka dhamaata Soomaaliya dhalinyarada wadaniyiinta iyo gabdhaha iyo wiilasha buu oga tagi doonaa midna farmaajo markuu ka tagan 4 sano markuu dhamaysto insha Allah ta'ala wuu soo noqonayaa ilaahay idinkii cabdixaashi Muuse Biixi buu la dhashay war farmaajo ii geeyay absolutely shariifo sharmaaka shariifo waa inaad xildhibaan doorataa inaadeer biiqlaanta waxa weeye reerka la dhaho Maxamuud Saleebaan waa inay dad wadaniyiina ka soo baxaan sidaadoo kale waa inay ka soo baxaan maxaan ku dhahay majeerteenka kala dad wadaniyiina waa inay ka soo baxaan leelkasa dad wadaniyiina
وأنا كسب بحن محن كنا عايز إلهي كوما درنا الدشيش للدد والدنيين وأنا هرتيجا كلا دول بهانتي ورسجلي إيو مريحانك وأنا كسب بحن دد والدنيا أو كبي قاعد بقشين كلو قدرة بقول كيف سديتن كوان كسب بحن محن كنا عايز تقبل كجدو لما هو تشاتوسين وأنا قشين كلو قدرة وأنا نما والدنيين كسب بحن وأنا ضلك من نمديسة يحوشنتيسة وأنا لقى شقية oo ay maxaan ku dhaad dawladda nabad iyo nolol siday u soo noqon lahayd laga shaqeeya siday wadanka u adkayso midnimadiisa waxay u haystaan wali in nool yahay sanaawi reer hargeysa waxay u haystaan sanaawi inuu nool yahay sababtoo ah sanaawi waa ka shaqeyn jiray inay dhahaan waa go'nay inay qaraxyada ku farxaan wala weyn inay u baxshaan dadka Soomaaliyeed inay dhahaan Itoobiyaanka naga xiga haddana ay soo xulaan xildhibaanadii qaraxyada ka shaqeyn lahaa magaalada Muqdisho ka shaqeyn lahaa inay magaalada Muqdisho dunto ka shaqeyn lahaa inay ummadda Soomaaliyeed islaayaan aad iyo aad baan ku salaamaya Aamina Dhool Ilaahay ha ku caafiyo Aamina Dhooley war Aamina Dhool ha la caawiyo war Aamina Dhool ha loo duceeyo war Aamina Dhool ha la garab istaago war Aamina Dhool gool dhool guyo daay gabdhaha Soomaaliyeed oo garab istaaga wiilasha Soomaaliyeed oo hooyooyinka loo garab istaaga dhamaantiin Aamina Dhool garab istaaga ilma adeerayaal garab istaaga adduunka wax la isku yahay aqra waxba la isku ma ah maanta way xanuunsan tahay garab istaaga intaas waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay Soomaali nabi maxamed meelaad joogtaanba ha laga shaqeeyo Muuse Bixi inuu sakuus lug yeelan iyo imaaraad iyo shisheeyo inaysan ku lug yeelan doorashada Soomaaliya farmaajo aabahood ma dilin hooyadood ma dilin waxay uga soo horjeedaan waxay ogaadeen inuu wadan yahay inuusan ogolayn kala goynta Soomaaliyeed inuusan ogolayn ummadda Soomaaliyeed in la kala gooyo inuusan ogolayn tikadaha ummadda Soomaaliyeed in la gato inuusan ogolayn imaaraad iyo maxaan ku dhahay Kenya in la hoos geeyo oo dadka Soomaaliyeed xasuuqaan tikadahooda iyo badahooda iyo shidaalkooda dhacaan intaas ay kaga soo horjeedaan ninkii la yiraahdo cabaadayay ninkii la yiraahdo Faysal Cali Waraabe muxuu cabaadayay muxuu farmaajo ka rabaa farmaajo isku guri ma joogaan abo geeroodu isku meel ma daaqo geeroodu isma boodo maxaa farmaajo uu uga cabaadaya yes oo u leeyahay la rido wuxuu u leeyahay wuxuu og yahay inuu yahay wadani Soomaaliyeed oo diidan takada barbara in la gato diidan Soomaaliya inay kala go'do diidan in maxaan ku dhahay Kenya ay shiraalka Soomaaliya iyo takadaha Soomaaliya iyo badda Soomaaliya qaadato yes intaas ku diidan yahay annaguna waa inaan inta ku dooranaa farmaajo aad iyo aad baan ina adeer macaan ku salaamaya Arab Qaamuuso إيعوده أنا جا حلبان بدورنا بيقلان بكدورنا بيقلان ب فرماتش نجيه فرماتش وبيقلان نندجي سماهين إن هذا رفيق بيقلان نندجي سماهين ماذا حوينا بيقلان نندجي سماهين بيقلان ومال بلايا كوهب ستوي كفس وضرات بيتك كوسمينيا قبلي بيكف سنيا معاك ودعاية القرن ماذي بيكف سنيا أرنشان من اللي يراد تشوجه أرنشان من اللي يراد تشوجه ولا هو ما قرأت فارتلكي وحن أبانا يترى إلى سنة كان الصوص صاران ولما وحن أبانا رافق إسماعيل إلى سنة كان الصوص صاران طلعي بالذي ترى سماها طلعي رافق إسماعيل والصوص صار يا ولما رجع عليه والحلمان هلا يقدقوا طلعي مش أسمع رأينا كقيل الحلمان هلا يقدقوا طلكي رافق إسماعيل يا كتورة نيك ماشى اسكفرنيا حاله اسكفرنيا أنا ماشى جاي أنا عيال يا واحد البيدي قضية سكول ليدي كيرا يو قرني من الصومالية كشقينا يو ماشى إذا كهلا يو إلهي بان كنا عرتي قراك صد الحلبان بان كنا قرية صد الحلبان بان كنا قرية ماشى صدانته صد الرأي علي أنا أفنير بيري دي ماشي جي لبدي دقاعنا وحن كنا جاي قرتين كنا جاي حلبان هذا بشارة عد كي جوا كسي قوليس بيقلان ملما حلبان كي جوا بنانك يا إن هذا دقي واكو السلامة ورق عرب قاموس وإن هذا تلك يغير تلك ترى الدارات ورانيا عيال iyo wax walba iyo kastamka turdibi furahayo meel walba u galaya wallahi dad xildhibaan iga dhigtaan iyo billaah wasiirana doonanaya dad xildhibaan iga dhigtaan ba inta kale taaniga igu daayay nuur cali nuur aad iyo aad baan ku salaamaya waa kaas sawirka aaranjaa waa kaas akku aaranjaan بيقلان بيكدغان ماشي
kufsi wadareed bay ku sameeyeen waxaan u baahnaa reer Puntland oo dhan waa u shaqeynaya iyo shacabka waa u shaqeynaya laakiin anigu aaranjaan lama shaqeynayo shacabka reer Puntland qabiilkay rabaan ha ahaadan waa la shaqeynaya sool iyo sanaag iyo mudug iyo bari dhammaan waa la shaqeynaya waa u doodaya ma fahmaysaa dhibaatadoodan ka doodaya idoorta aniga ilmaadeerayaal idoorta hal ay taageero beenidi ma sheegay ana Puntland meel idinka saaraya tuugada qaa'imiinta waxaan u baahnaa marka ummadda Soomaaliyeed Cabdi Xaashi odaga la dhahay la iska jiro kala geynta ummadda Soomaaliyeed buu ka shaqeeya wax kale kama shaqeeyo ma yaynaadeer lacag ma haysto waxaan lacag ma haysto lacagta koobdhe xildhibaannimada ee ilaahay kuumada wax walba adika idinka raba shil lacag ma haysto lacagtiina ii soo qaaraa nimankaba waad u qaaraantaana naagihiinan kolkolaha ayuu tooyinka ku haysta nimankaba waa u qaaraanta anigu dadkan wax u qabanaya nin aan waxba u qabanayn oo maxaan ku dhahay tacandadiisa saaranaya oo naagaha hoteelada la degaya Muqdisho oo waxba idii qabanayn oo maalinta soo doorataan idii ku dambaysaba lacag waad u aruurisaane ilmaadeeraya anna ii soo aruursha aniga wax idii qabanaya kolkolaha furo boorsooyinka furo intaas waa intaas waxaan u baahnahay sharmaaka sarif soo saasma ilaadeer gabadhnimo deeqoy faaraxay gabadhnimo wallaahi waa idin shaqeynaya anigu hoteelada Muqdisho ma seexanayo mar waxaa ka degaya Galdogo mar Gaalkacyo mar Boosaaso mar Boole mar maxaan ku dhahay meesha la yiraahdo dhulka Puntland ka kooban yahay oo dhan shacabka jooga waxa weeye maalin beeji oo yahayad baan u soo qalqaalinaya soo waxa garatay maahan waxaan leeyahay warda shacabkayga ceel loo qod waa maalin walba baarlamaanka idinka hadlaya waxaan leeyahay shacabkayga waxaasay u baahan yihiin shacabkayga qayradayda waad ka kala tagaysaare kaalay doorta ilmaadeeraya kaalay doorta tuug candadiisa iyo hungurigiisa u shaqeeya baad maalin walba doorataan ma fahmaysaa intaas waa intaas anigu oday Cabdi Xaashi intaas uga tagaya Cabdi Xaashi waa lagu fahmay hadii lagu fahmana banaanka laga maraa haddii lagu fahmo ummadda banaanka laga maraa kala gooynta ummadda Soomaaliyeed baad ka shaqeynaysaa soo waxa fahamtay ma aha ilma adeerayaalow barqaati ka ahaada Cabdi Xaashi waa basaas u soo dirsadaad Muuse handaraab baa soo diray cid kale ma soo dirin waxaan u mahad celinayaa marka oo walibana aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ummadda maxaan ku dhahay reer waqooyi dhammaantood gaar ahaan ragga beesha Sheekh Isaaq xildhibaanada maanta shiray oo ka soo horjeestay odagaas beeshinka raba ummadda Soomaaliyeed inuu kala gooyo Muuse Biixi u shaqeeya ragaas waan u mahad celinayaa waxaana leeyahay looga dhigo gabdhihii iyo raggii wajiyadooda maanta meeshu ka muuqdeen oo weeyelkaas ka soo horjeestay in dib loo soo cesho ha looga dhigo maxaan ku dhahay ha looga dhigo premium ha looga dhigo ragaas aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa rag wadaniyiin mar haddii ka soo horjeesteen kala goynta ummadda Soomaaliyeed iyo waxay soo maleegeen Faysal Faaruq iyo balaaye iyo kuwa kala goynta ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeya tekadaha gadgadashadooda iyo badda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed qaran jabkeeda aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ragaas reer Sheekh Isaaq oo maanta hadlay waxaan idin leeyahay guulaysta horena u socdo waa idin garab taaganahay sababtoo ah canshuurta ummadda Soomaaliyeed waxaad ku qaadataan inaad daacad u noqotaan inay Muqdisho nabad noqoto in dawlad adag ay dhalato inay ummadda Soomaaliyeed midowdo aad iyo aad baan kuu salaamaya ina Cabdullaahi Cali oo abti macaan aad iyo aad baan kuu salaamaya waana ka soo baxdeen xaqii Cabdi Xaashi wuxuu diiday doorashooyinkii dhuusa mareeb kama u qayb gelin dhuusa mareeb 1 dhuusa mareeb 2 dhuusa mareeb 3 maxaan ku dhahay sharcigu saxiixay buu diiday waa 80 jir maxaan ku dhahay ka shaqeeya kala goynta ummadda Soomaaliyeed lacagtu qaatana waa xaraan maqdac weeye aqriya adduun waa loo haystaa sababtoo canshuurta ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku qaataa iyo wax ummadda Soomaaliyeed qarannimadooda lagu helo wuxuu ku qaataa inuu ummadda Soomaaliyeed isku soo dhaweeyo inuu kala gooyo ma
حرام وي أقرنا والله هايستا سديتن جرنا وي قبرك كرتاي يا أد بقى حما oday cabdi xaashiye halkaasaan uga gudbaya waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintii dilkii shigshigow iyo codkii luga dheere waxaan rabaa inaan mid iraahdo beesha sade midna inaan iraahdo maxaa la dhahaa to beesha ogaadeen midna inaan iraahdo beesha siiqaal midna inaan iraahdo ummadda Soomaaliyeed midna inaan iraahdo marxuumkii dhintay waxaan leeyahay ilaahay ha ku naxariisto ilaahay wuu ku naxariisanayaa mujaahid baa tahay jannadii firdawsi Allah ku geeyo gacanka xaq darab baad dishay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ciil damba kuma bado inta Allah kuugu ekeeyo dib adduun iyo dib aakhiraba ilaahay inta kuugu ekeeyo jannadii firdawsana ilaahay waasaca kaaga dhigo alfaabadii jannada Allah ku furaan leeyahay marxuumka ilaahay subxaanahu wa ta'aala dambigaaga hore waa dhaafay oo ayagu dusha ka saaray gacanka xaq daran baad dishay qaran dumisku ha dhaco cabdi xaashi gudoomiyaha aksuunista team alkulistayaal team faysal isagoo loori gada u socda la socda 88 waxa ka soo dhacay 5 fuusto oo shidaal ah ina adeer macaan faysal cali waraabe waa u soo laabanaya markuu lahaa dir iyo baqbaqdaas ma fahmaysaa waxaan u baahanahay dir inaan mid iraahdo dir yaana dhihina shiiqaal beesha shiiqaal ee uu loga dheera ka dhashay ninka u soo diray nimankoo yiri haddaan ciidanka kuu soo diraya sababtoo ah waraysiga waa maqlayni wuxuu yiri ciidanka been baad ka sheegaysaa haddaan kuu soo diraya waana u sheegayaa ciidanka beentaad ka sheegtay waana qayrkaygaad aragteene amalay shartaydaan idinku jajaabinayaa period way caddaha ninkaas inuu asagu u soo diray nimanka dilay nimankuu yiri waa kuu soo diray ee been baad ka sheegtay baana dilay marxuumkaas naxariis janna Allah siiyo waa caddaha taasi cid ay dah ka saaranta ummadda Soomaaliyeeda nama jirto waa xaqiiq yaa laakiin asaga laftirkiisa soo amray waa Axmed Madoobe yes asaga yaa ka sareeya madaxweyne ku xigeen saddexaad meel ay ka shaqeysa ma jirto waa gaangi wada shaqeysta saddexaad iyo labaad iyo koobaad iyo no Soomaaliya sharcigeeda kuma jirto sharciga gaaladana kuma jirto sharciga maxaan ku dhahay muslimiintana kuma jirto waa gaangi group ah oo wada shaqeysta marka beesha shiqaal mid baan leeyahay shiqaal waxaan leeyahay shiqaaloy adinka sida ay mareexaan u dhiban yihiin baad ugu dhibantiin magaalada Kismaayo sida loo laayo mareexaan baa la idin laayaa sida loo laayo jareer weyna la idin laayaa sida maxaan ku dhahay loo laayo ogaadeenka laftirkiisa la idin laayaa sida loo laayo harti baa la idin laayaa sida loo laayo maxaan ku dhahay to ilaahay kuma darnaadee ummadda Soomaaliyeed qabiil kasto ay tahay baajuun biyo maal dhamaantood nimanka la yiraahdo magacooda cawra male baa la idin laayaa ninkaas luga dheera ah mas'uuliyadiisa ma qaadi kartaan shuqulna kuma lihidin bannaankaad ka tihiin haddii la dilina shuqul ku lahayn haddii la caayina ka jawaabi karin haddii loo dhaartiina ka jawaabi karin bari baad ka tihiin welibana wax ka dila waa beesha shiiqaale culumada ah uu ku abtirsado mareexaan baa u soo degaya iyo beeshu ka dhashay ninkan la dilay waxaan leeyahay shiiqaal nimo ha u dilinina hana u aanaynina shiiqaal ma aha ninkaas waxaa soo kireystay groupkan qaxootiga soo qaxay ee jeel ogaadeen ka soo qaxay ee dadka ku xasuuqa magaalada Kismaayo dadkii u dhashay gobolada Jubbooyinka hawiye iyo daarood iyo dir iyo digil iyo mirifla may kala reebin way xasuuqeen ogaadeenka laftirkiisa qaar kamid ah dhalooyin bay u shiideen nin ogaadeen oo reer Cabdillah oo asagu ka dhashay ah lacag buu inta ka daynsaday Axmed Dhuxulayste lacagtii markuu yiri isii 300,000 ilaahay baan kuugu dhaartay inaan 3 bilyan miyay ahayd 300 milyan miyay ahayd ma aqaan lacag aad u far badan lacagtayda isii markuu yirina dhalu u shiiday ninkii Denmark buu yaalaa mise waa Norway oo lagu dabiiba
وانين رير عبد الله يا وقاديك كلامه oo wallahi oo billahi shaaf raabika hina asaga dilay baa lacag buu kulaha wuxuu yiri baa la yiri lacagti waa la idin furay waa adiga dawladda la heshiiyay lacagtayda isi raafiga asaga saaxiibka la reer abdillah laftirkiisa dilay oo al-shabaab buu la shaqeeyaa oo al-shabaab iyo asagu geesaha dhan bay kismaayo uga hareeraysan yihiin magaalada Bu'aale reerka ugu badan dadka ogaadeenka degan Jubbaland weeye waxay u badan yihiin Bu'aale iyo agagaarkiisa soo waxa faantay maahan al-shabaab baa haysta koob iyo 10 sano Axmed Madoobana kismaayo jooga mar allaala iyo markii la damco dawladdu inay aado qaylada ka baxdo waad yaabasa tuutu gashanaya wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh abdi bukur abdi abukar aad baan ku salaamaya abdi abukar ma fahmaysa soo dhawow walaalkay wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi oo billahi wa tallahi tuutu gashada u fiirsada magaalada Bu'aale sababtoo ah magaalada Bu'aale waxay u dhowdahay hooyo aad baan ku salaamay waa ku jeclaa I love you I love you saxooy ma fahantay magaalada Bu'aale waxa u badan Soomaali badan baa degan oo collection mareexan baa degan giir baa degan jareer weyna degan raxan digliya mirifla degan awliyahan baa degan reerka la dhaho laakiin gobolka gaday isku dhow yihiin oo wuxuu isleeyahay waa isku xirmayaan oo reerka awliyahan la dhaha iyo gada iyo dhulkaas isku xirmaya ka bacdina meeshaan ma sii haysan kartid buu isleeyahay wuu qaracmaya hadii la damca in magaalada Bu'aale la xoreeyo kismaayo umbu jooga iyo dhowlay oo xuduudda ay afmadow waa xuduudda Kenya diyaarad buu isaga raacaa dhexdooda xataa tuulooyinka ku yaala al-shabaab baa haysta kismaayo al-shabaab baa saa ugu wareegsan sababtoo asbaab iyo asagu waxay heshiis ku yihiin oo dhuxushu ku wada dubanayeen koob iyo 10 sano tikadana wuxuu ka siiyaa maxaan ku dhahaayay lacag buu ka siiyaa waxaan marka rabaa beelaha meeshaas degan saxnuuni aad iyo aad baa ku salaamaya reer Jubbaland qabiil kasto ay noqdaanba waxaan u baahnahay dadkaanu dad dagaana ma aha Axmed Madoobe iyo nimanka u shaqeeya day dagaan ahaan lahaayeen waxay ka baqilaayeen godob in loo qabsado hooyadood in loo dilo aabahood in loo dilo ina adeerkood in loo dilo qabri bayax bay ka yimaadeen ina adeerkood qabri bayax buu degayay Axmed Madoobe ma aha reer Jubbaland nimanka askarta u ah ma aha reer Jubbaland ogaadeenkii reer Jubbaland ka aha qaarna waa la qaxiyo qaarna al-shabaab baa haysta period ugaaskii awliyaan maalin dhaweyta inuu meeshan la yiraahdo Muqdisho ka soo calaacalayo laha waxaan u baahanahay meeshaas anigu balfiir waa ugaaskii dhamaa awliyaan waa reerka degaba meeshan la yiraahdo magaceeda Jubbaland ogaadeenka dega waa reerkaas wuxuu waasagi ka soo calaacalaya meesha la yiraahdo Muqdisho qaarna wuu tarxiila marka waxaan leeyahay reerka mareexaan oo ninka laga dilay adeer macaan waxaad u dilaysaan nimankaas doolka abaad u dilaysaan shiqaal ahaana oo aaraynaysiin sababtoo ah shiqaal wuu dhameeyay xoolahoodiina wuu dhacay dhulkoodiina wuu dhacay beerahoodiina wuu dhacay waa ku soo qabanayaa haba macaan ma fahmaysaa Faysal Faaruq baa soo haray nimankaas waad isbahaysanaysaa harti haddaad tihiin maxaan ku dhaha ogaadeen reer Jubbaland asalka ah haddaad tihiin maxaan ku dhahaayay mareexaan haddaad tihiin ilaahay kuuma darnaade giirgiir iyo gabaaweyn haddaad tihiin dir haddaad tihiin shiqaal dhammaantiis waad isbahaysanaysaa waxaadna weeraraysaan Axmed Madoobe iyo inda koray iyo maxaan ku dhahaayay ina sayid aadan iyo ninka la yiraahdo magaciisa kuwa u shaqeeyo doolka jeel ogaadeen gabdhaha naasaha kaga jiray dhammaantood waa dool hooyadoodna ma degana Jubbaland aabahoodna ma degana godobna ka baqimayaan oo wiilkoodii ayaan waxa rabaan inay isku diraan dadka reer Jubbaland oo ab iyo isla degan oo geeloodu isla daaqo oo isku aanooba marka ayaga weeraraysaan qurba joog iyo qaran joog waa inaad samaysataan meel aad lacag ku shubataan oo aan qabiilna lahayn oo reer Jubbaland la dhaho ka bacdina inaad weerartaan waryaa ma waxaad ka xuntihiin waryaaya ma waxaad ka xuntihiin
nimanka la yiraahdo habar gidir walibana cayr oo Soomaali oo dhan dagaal galiyay oo anagoo dhan u gurmanay Cabdullaahi Yuusuf markii 60 kun oo amxaarada ay xamar soo gashay cayr baa dadka dagaal galiyay ayagay target garaysanaysay amxaaradu tigreegu amxaara kala ma inuu tigree baa hogaaminaya meel salaawi Soomaali oo dhan baa u gurmatay halkaan aan lacagta ka gurayn annagoo qabiil fiirinayn markay dhaheen tolaay ayaa Soomaaliya xabadda adinku bilaabo waa intaas oo dhiman ba weydaane hantida aruurinteedana adinku bilaabo reer Jubbaland waa intaas oo dhiman weydaan ma 4,000 oo sakadhuudhiya oo amxaara ka tabar yar iyo Axmed Madoobe oo dool iyo 15 nin oo jeel ogaadeen ka soo cararay baad iska kicin weydeen adinku intaas oo milyan oo reer Jubbaland oo wada dulman oo qabiil la idin fiirinayn oo mid walba maalin xabad lagu jeexayo miyaad iska kicin weydeen dal iyo dabadba waad joogtaane intaas ba haysataan eeda ogaadeen iyo mareexay madagaan Kismaayo waxa ka daga dad yar oo uga yar tuman runtii horta magac Arab baad sidataa laakiin waxa ku leeyahay ogaadeen iyo mareexaan way dagaan Kismaayo boqolkiiba 80 iyo boqolkiiba 89 dadka daga waa mareexaan iyo ogaadeen Kismaayo ma fahmaysaa boqolkiiba 89 runta ku sheegaya Kismaayona waa magaalo Jubbaland kamid ah macna ma sameynaysa cidda degan Soomaali oo dhan baa degan laakiin dadka ugu badan oo degan waa ayaga laakiin ogaadeenka degan ma ahan ogaadeenka qabri bayax iyo dhagax buur Axmed Madoobe iyo wiilasha dadka u laaya ee duurkii ku shabaxa ma ahan reer Jubbaland reer Kismaayona ma aha period kuwa kaleeto oo marka mareexaanka ah ee la shaqeeya ee indhakoray leh ee ina sayidaadan leh ee MMS leh ee kaliil leh ee maxaan ku dhahay tashiiqaasha ah ee caga dheera leh ee maxaan ku dhahay luga dheera leh dhabaantood waa la xukun waa la dilayaa qabiilna looma aanaynayo asaga iyo wixii u soo hiliyo xabadda kugu soo ridaad xabadda ku ridaysaa sababtoo ah shiqaal bay laayeen xoolahoodii bay dhaceen mareexaan bay laayeen xoolahoodii bay dhaceen giirgiir bay laayeen xoolahoodii bay dhaceen gabaaweyn baa laayeen digil iyo miriflay laayeen maxaan ku dhahaa baajuun bay laayeen ciday daayeen male dhammaan dadka safmar bay u laayeen waa dadka deegaanka ah marka dadkan waxaa la dhahaa reer Jubbaland baa la dhahaa reer Jubbaland magacoodu waa reer Jubbaland asaliyan ma fahmaysaa ninka asaliyanka reer Jubbaland ah kaas أحمد قلوب داعر أضياد بكوس رمايا نك أسليا كرير جبلانا أما هوية هذا أما دقل يمرف هذا أما تشرير وين هذا أما باتشور عدو الرباع هذا كاسو باسكو قبيلة استايرو أو أفركون أو عيدا maxaan ku dhahay takadhuudhi ee fulayaad ogtihiin iyo niman dool ah miya adinku dhowr milyan ah iska kicin weydeen inta adinka idinka raacdayna isku dhinac uga soo jeesta adinkoo dhin kan waa mareexaan kan waa digil iyo mirif kan waa giirgiir kan waa gabaaweyn kan waa baajuun kan waa harti kan waa hawiye kan waa daarood midna inaan dhihin isku dhinac ka mara sababtoo ah waa isku group weey adinkuna isku group baatiin adinka waa la idin laayaa waa la idin xirxiraa waa la idin gowracaa waa la idin maxaan ku dhahay dhacaa ma fahmaysaa soo waxa garateen ma ilma adeerayaal marka ninka ogaadeenka ah sheeganaya ogaadeen baana ee ka yimid qabri bayax ee ku dilaya adoo cawliyahana ee ku dilaya adoo xataa maxaan ku dhahay reer Cabdille oo dhalooyinka ku shiidaya kuwa qabiil ma ah reer Cabdille waxa jira reer Jubbaland reerka maxaan ku dhahay daga dhoobley iyo meesha la yiraahdo oo waa reerka duqbilow inkastoo ku yariino reer jifa yar oo reer Cabdille kamid ah yihiin reer baa daga jifa kamid ah reer Cabdille degta laakiin ma ahan nod kuwaan eegakada leh eegakada kuma hadlaan reer Cabdille jifada kamid oo degta maxaan ku dhahay dhoobley eegakada ma dhahan no ma dhahan waxay ku hadlaan afreewaamay ku hadlaan dadka luuqadooda baasaboor ah hadduu marba eegakada yiraahdo waa qabri bayax dhammaantood dadka dilayood idaacadaha soo istaagayo odayaasha dhammaantoodna waa wada eegakada soo u dhan yihiin eegakadaba haddaad aragtaan qoorta ka gooye eegakadaba bar hadduu ku yiraahdo qoorta ka gooye hadduu uu afwaamo ku hadlayo oo ayaga xabadda dhinacooda ka soo ridana qoorta ka gooye
hadduu afgada ku hadlayo oo qoorta ka soo ayaga xaggooda ka soo joogto qoorta ka gooya isku dhinac uga soo jeesta markaasaad guulaysanaysaan inta aad leedin kan waa shiqaal kan waa mareexaan kan waa ogaadeen kan hadduu yahay maxaan ku dhahaye mareexaan haddii ay yihiin ama ay ogaadeen yihiin nimanka kismaayo maxaan ku dhahaye ku laaya dadka ina sayid aadan waa nin mareexaana ninkii lalahaa mareexaan qaylaa ka soo hartayna ninka u dhaaranayo wuu ka sarreeyaa ina sayid aadan waa nin mareexaana ninka la dilayo telefoonka loogu hanjabayay oo la dhahayay waa idi dilaya reer caamir haa waa idi dilaya ninka la dhahayay waa ku dilaya ninka la dhahayay oo telefoonka laga duubay wallaahi billaahi tallaahi baan ku dhaartay waa nin mareexaana ninkan luga dheera ninka ka sarreeyana waa nin mareexaana haye ayaga isku qola ah horta mase adinka idi qola yihiin la qola yihiin no ayaga isku qola isku dhinac uga soo jeesta marka mareexaan wuxuu yiri qaylaa ka soo hadhay luga dheere qaylaa ka soo hadhay buu yiri afkay uga soo harta fartaag ayagu uu yilinay wuxuu yiri fartaag baa soo wacay wuxuu iga qaadi karana ma jirto fartaag waa groupkooda waa groupka kukaayada ina sayidaada waa groupka kukaayada inda koray waa groupka kokaayada mareexaan ma aha mana u hadlo nin mareexaan oo loo fiiri war waxaana qabiil ma lahana waa isku group mafia oo idinku soo duulay kuwa adinka idinka raacay oo reer Jubbaland iyo kuwa doolka ah ee qaxootiga ah inta idin yimid ida xasuuqaya ee jeel ogaadeen war ogaadeen bay asxaan u sameyn waayeen gabdhihii ogaadeen bay naasaha ka gureen nimanka kismaayo hadda dadka ku xasuuqaya soo ma ogidin gabdha naasaha laga gooyo futada iyo siilka basbaas looga guray ogaadeena oo TV-yada ka hadlaya ma weyna arag wiilal dhagaha laga gooyo ogaadeena ma weyna arag oo xataa reer Cabdille dhagaha laga jara dhagaha waxay sameyn jireen sida waxay ugu cinqaabi jireen yuhuudi bay xabsiyada ugu cinqaabi jireen dad kale oo to ogaadeena saxnuuni soo qabso barnaamijka ku badnaa meesha rabti ka qabso saddex buu ahaa Faysal Cali Waraabe ina xaashi iyo maxaan ku dhahaa dilkii iyo codkii meesha laga soo duubay iyo karaan reegado saddexdaas ba ka hada saxnuuni aad baan ku salaamay soo dhawow habarir waan dhowahay waad baan kuu salaamayaa ma garata sidoo kale horta khayr allaha ku siiyo allahana ku xafiday adiga awlaadaada sharkoodana allaha kaa indhasaabo ma garata aamin yaa rabbi haddii aan halkaa iyo aado kismaayo horta waxaa la xil rabba hayay soona daa ninkii luga dheera ahaa kolley ruwaa la tagbartay ka dhig waa ku ceeb buu yiri horta in badan buu u dhaarto ka taqallusa ma garata waana nin lagu shaqaysanayay oo miskiina oo waagii hore oo meesha dadka gaangiska markii qofka soo galahayo gaangiska waa la garaacaa ma fahanti صح مسكين inta la garaacaa xoolihiisana la qaataa isagoo dhiig ka daadanaya la dhahaa ma ku jirtaa groupka ha sharciyadan saxiix horta luga dheere nin shiiqaala ayaa laga dilay waa hore oo hadda waqti badan laga joogo xilligii dameer madooba carrada imaanayay ninkii markii laga dilay madooba wuxuu u dilay 6 ogaadeena oo 4 cawliyahan too masaakiin tahay صح hal nin kuma jirin oo reer Cabdille war may fahanta oh my god haye waxaa la sheega ninkii xabadda ninka kaga dhacday oo ninka dilay iyagii baa mid way sheegi waayeen markay sheegi waayeen gaangisnimadii buu rabaa madooba inuu muujiyo inuu tuso odagaan luga dheera waa meeshuba shaqada ka bilaabay may fahanta oh my god haye may arkaysaa buu yiri 6 inaan ka taqallusay ogaadeenkan masaakiinto carrada aan ugu imid oo joora ahaa ila shaqaysuu yiri reerka adigu aad ka soo jeedin afaarihiisa ma gali kartid oo sheekhaaleed nacamti qaabkii gaangisku ku soo galay 6 ogaadeenha loo dilay wiil sheekhaala oo isna tiisi gashay Allah u naxariiste 6diina Allah u naxariisto luga dheer maalinkaasuu bilaabay qoladii loo diro isagoo cagcad inuu madax u galo war may fahanti Allahu akbar kuye lacagna si war yaa lacagtana si nabadaad ku shaqaysata anaga ka shaqayna bal nabadu haysta maxay taa duurkii baa lagu dilaa dadka Kismaaye lacag 20 kuraysi kuye 25 bay aad yar 25 wiilku markuu dhintay riboodka uu qoray bay inayd waana sheegno suuqan galina kelmadaas qodbooyinka yagi Maxamed Cali iyo aniga dib u fiirso waan sheegna 25 kun inuu wiilku dhintay iyo meesha isagu ka shaqeeyo oo la rabay mid reer Cabdille in lagu fariisiyo
sababta waxa weeye xawilaadaha dahabshiil iyo barakaad iyo tawakal iyo mustaqbil iyo taaj kulli mareexaan baa lahaa hal xabba kama joogaan hal xabo wiilkan wiil la shaqayn jiray oo reer maxamuud guuleeda labada bawdaa la jabiya wuu ka kaca bay fahmaysaa asagoo dhaawucuu caabud wuxuu yaallaa kismaayo hadda marka sheekada tanu waxa weeye kursiga iiga riix dadkii tahriibka ahaa ayagiibaa isku haysta kursigii dadkii meesha u dhashayna nacamti ooda afka laga saara war may maqasha marka waxa weeye luga dheere maalinkaas 6 loo dilay ogaadeen buu shaqada qabtay non stop buuna shaqada u hayaa dhaartaan ma ogaya milyan dhaarood buu galay dilidda wiilkan ma ogaya milyan qof buu wax ka dilay luga dheere wuxuu ahaa abeesada qarsoon oo hoosta dadka ka cunta laakiin wiilkaana alla ku fashila war may fahanta sababtu waxa weeye hadduusan luga dheere dad horey u cuni jirin noocaad aragtay oo gaangiska umuu dhaarteen waryaa wuxuu yidhi 25 kun wuxuu yidhi waxaan la hadlay markii lay xiray oo lay qaawiyey oo sharafta layga qaaday oon lay xushmaynin yaa waxaa xanaaqayb iyo kabanigii kumana siin kara way diideen lacag inay ku siiyaan cirku ka soo booda luga dheere waad arkaysa nacamti waa nin dhiigga ku mabay qamru cabaabaa la yidhi jaad buu cunaa awlaad ma leh waxaasuu iska daaqaa waana dadka dhiiggiisii waxaa laya weligii salaad fooda dhulka ma dhigin adigu waa dameerkaas dameer madooba kabaha misqusha u geeya may garad ninkii ina sayid ahaayoo asaguna qoolka lahaa sidii waxarihii sabeentii asagu waa maqan yaho etoobiya bildan ku maqan yahay way soo wacay ma jooga kisma dadku lahaa ina sayidaadan baa soo wacay horta ku jira dadku yiri way soo waceen maya fartaag buu ka sheegay wuxuu fartaag baa soo waco kii kale ay soo waco kii kale ay soo waco kii kale ay soo waco waaba mareexaankuna qaylaaba ka soo harto iyo qaylay quutaan waxa weeye waxay qaylo u quudanayaan mareexaanku 75% iyaga kismaayo ka tuulooyinka iyo baadiyahana iyaga ka gabdhaha caanaha keena waa gaal jecel iyo mareexaan iyo sheekhaal hal gabar ogaadeen oo caana keentaa ma jirto wixii baa marka mareexaankii la yaabayo markii sida abeesadii dadkaan xishoonayn oo akhlaaqdooda iyo tababarkooda iyo dishibliinkooduba yahay hooyadiin batari ku guraya walaashii naasaha jara mareexaanku wax naasa la jara may aqoon qof eheloo darisoo la xasuuqana may aqoon dadkii oo dhan oo deganaa kismaayana waxa ku dhacay jaahwareer dhaqan baa ku dhacay jaahwareer xagga akhlaaqda ah ku dhacay jaahwareer waxa ku dhacay xagga diinta sababtu qof islaama oo qof dhiigii subaxi usoo kalahayo habarir waa wax mucjisa ilaahay baan ka magan galo rabbiga casiiska inaan qof lacag baada inta weydiiyo aan dilo 2 saac ka bacdi baa la dilo wiilkaas 2 saac ka bacdi ka bax haddaa lagu xirahayaa haddaadna xanuunsanaysaa buu yiri ballan baana ku qaaday biyo inaan qofna iga kaa celin sababtu wax badan baa madooba soo diray khaalid shangol la soo diray aadan goonjaar soo diray dadka uu dilahayana waa mareexaan iyo sheekhaal iyo gaal jecel iyo cawra male dadka waa dhammaadeen dhammaadeen hameen iyo maalin mayd baa wuxuu yahay naftarkooda hartigii niman ma jeerteen la dhaa horta gamtuuba u joogsaday maryam siciid reerkooda halkama harin gabadha dhakhtarada oo Canada joogta halkama harin reerkooda waa ogahay hartiga aad buu dhameeyay waxaan xasuustaa wiil hadda kahor waa uu kismaayo haystay dhuxulaystay oo kismaayo uu al-shabaabka ahaa waagaas wiil waxaan xasuustaa ma jeerteena oo Cismaan Maxamuud ah baa jeebkiisa wuxuu ku arkay sawirkii Cabdullaahi Yuusuf diyaaradii baa lagala dagay wiil hay'ad u shaqeeyo ahaa waa la dilay waxa la tagay xeebta 5 xabadood baa lagu dhuftay soo ma ogid yes oo waliba aan laba cali isweydiin ma jirto ninkii la oran jiray hebel jareerow oo markii dani imaanahayo dameerku isku kaadi shubahaya ayaantii dhaweyto dani doorka u yimid dani oo raba dani oo dhaaya mareexaan naga kala yaree sababtu aaranjaan diintooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda mareexaan bay kaga dhigtay see mareexaan magac u yeesho see mareexaan sharaf u yeesho see mareexaan madaxweyne u noqdo see mareexaan ra'iisul wasaare u noqdo aaranjaan naag masayrtay oo ninkeedii naag kale la guursaday mareexaan ku noqdeen ma fahantay I know aaranjaan biiqlaan marka maalinkii isku kaadi shubahayay dani dibira weyna waa ka yimid markuu yimid ninkaas lacag buu ku lahaa madoobe markaasuu in adeerow ninkaan lacagtayda iga sii wuxuu moodo meesha qabiil in loo socdoba qabiil looma socdo waa gaangis la heshiiyey aaranjaanoo gaangisa oon majeerteen matalayn iyo nimankan reer cabdulloo gaangis oo tahriiba
oo ka yimid Shangoosh iyo Fiiq labadii gaangis baa heshiinaya reer Mareexaan la dhahayna waxaa la yiri labadii meeshii laba maroodi ku dirto cawska ku dhamaada dadkan kaloo Kismaayo ku dhimanaya Mareexaan madaxooda u dhimanayaan sababtu dadkii baa Mareexaan jecel oo weligood daris la ahaa oo Mareexaan uusan weligood abiyuusan ama dhibaato u geysan markaas mid waliba wuxuu leeyahay waagi barihiina naloo qaati nolol baan haysan ilaahay masiibada naga dulqaad mar alla markay inta dhahan waa Mareexaan u dhimo gaal jeceshu Mareexaan bay u dhimat awramalu Mareexaan buu u dhinta qof la soo hadal qaadi karo Mareexaan uma jiro oo magac yeelan kara marka waxa weeye habar yar dhibaatadaas meesha jirta ninkan luga dheer asagu waa toogasho sababtu waxa weeye haddaan ciidankii wacayaabay ciidankana ma caayi kartid dhaqanka meesha ka jirana waxa la yiri dad badan baa hadda xirxiran wiilal Mareexaan ah xirxiran hadda oo 9 sano madooba jooga xabsiga ku jira Kismaayo qaar baa naagahoodii la fasaqa qaarna naagahoodii baa la dumaalay sababtu maydkiina wuu tusi waayay dhimashadii noloshiina wuu tusi waayay xataa intuu qaaday dadka la libaaxyada la siiyaayo Kenya libaaxyada siisa ku jira lama yaqaan qaar baa wallahi naagahoodii la dumaalo rag kale caruur u dhalahaya war ma maqash si fiican marka waxa weeye arinta tan waa arin mucjiso ah qofka markii la qabto wiilku wiil wadaadu heeshigshigow ilaahay u naxariista adduunka boqor haduu jina boqor adduunka la keenay buu ahaa wuxuu yiri sarwaalkii baa layga baxshay oo kasuumadii baa layga baxshay exactly waa waxa madooba sameeyo luga dheeraad aragtay kaamara laga duubay isagoo qaawan jid iyo jahamale meeshii loo diray madax buu u galahayaa hadda wiilkaas waxa maryaha looga qaado oo loo qaawiyo kaamarada looga duuba inuu madooba kabaha misqusha u geeyo oo la dhaho markuu niiq dhaaba sawirkaagi baa la soo bixinayaa ma akhlaaqdaas aan naqaan ma waxaasa islaamnimo ah meeshan jeel ogaadeen baa ka jira magac baan weli loo bixin jeelka xasuuqa baa ka jira meesha maxaa dadku inay sameeyaan ay tahay dal iyo dabadba dadka reer Jubbaland Mareexaanka ugu dambeeyo hadda ninkoodii la dilay naagahan niiqniiqle ee qurunka iyo nimankan qurunka iyo niiqniiqle ee Mareexaan soo inay lacag iska aruushaan maaha soo inay maxaan ku dhahay to jamhad samaystaan maaha soo inay isxoreeyaan maaha ayr baa bilaabay xabadda maalintii Etoobiyaan lala dagaalayo soo inay xabadda bilaabaan ma iyaga ugu badan dadkee soo inay xabadda bilaabaan habar yar horta markii hore nin baa laga sheegay habartoosin saariya taqaaninta la war maxay habartu ku lagade ilaan Mareexaan ogaadeen agtooda habar buu ka yahay nin ogaadeen oo Mareexaan u dhaaran kara adduunka ma jiro waa qarusaman wuxuu yahay habartoosin saariya taqaan iyo meeshoo dibir hay isugu kay aaduyir horta Mareexaan koow wixii araxda ka jabiyay oo awoodoodii kala dhantaalay waxay ahayd dagaal 3 geesooda oo yahaadhigtii uu gabra watayna ka soo qaaday dhanka doolow Kenya ay ka soo qaaday dhanka ceelwaaq nimankii afka duubtay oo Kenya iyo madoobana ka tirsan ilaa madooba waa al-shabaab ayaguna ay magaalooyinku u degan jidadkiina u istaageen horta Mareexaan taasaa ku dhacday dawladdii Soomaaliyana meesha ka baxday sababtu xilligii Sheekh Shariif joogay Sheekh Shariif asaga baa al-shabaab ahaa oo madooba saaxiib la ah xilligii Xasan Sheekh wuxuu biisi ku ahaa alaabtii iyo lacagihii buu guranahay qof Soomaaliyana kama naxayn sharcina ma fiirinayn sababta hadduu fiirinayo intuu xoogaa iswaalay oo yiri madooba ma aqoonsanayo yaa isagoo madaxweynaha Xasan Sheekh inta looga yeeray Ardisababa yuusajuud la dhaca oo la madooba juuq ma oran kartid Xasan Sheekh diyaaraddu inta ka soo dagay wuxuu yiri maanta laga bilaabo madooba waxa tay madaxweyne dekreetuba ku magacaaba horta Mareexaan taasaa ku dhacday ayagiyoon dawlad iyo garab haysan ayagiyoo yahaadhig Ethiopia 13,000 sano dawlad ahayd halkan ka weerarayso oo hal qoys oo Mareexaan ah halkaana Kenya weerar iyo diyaaradaba isku daba wado balad xaawasiligaad oragsidii Falastiin la dhigay Kismaayana la madooba ka dhaqaaqaya Mareexaan bire Mareexaan habar wax ku dhacay wax caadi ma aha hadda markii yahaadhigtu baxday farmaajo ay farma qaadi kartaan oo wuxuu mooday madooba nin qowl leh oo islaana waana mujrim gaal ah oo aan akhlaaq lahayn oo al-shabaab oo dadka dhiigiisa kaliya ku nool ilaahay habeen ku dhashay ma fahmaysaa farmaajo wuxuu farma qaadi kartaan farmaajo markuu ciidanka geynayo gado waa markuu madooba ka samray oo hal qowla ka waayay oo hal kalmado runa ka waayay oo wax alla waxay ku kala tagaan isla daqiiqad uu ka noqdo oo haddana uu yeero markaas uu ka noqdaa markuu samray farmaajo ayuu wuxuu geeyay ciidanka halkaas asagoo diidan wax dagaal oo qabiil inay ka dhacaan magaalada ayuu yiri anaa ciidan idin keenaya
bal kenya idinka difaaca hadda ogaadeenna kenya haddii ciidankii soomaaliya la keenay ogaadeen mareexaan ma awoodo kumana dhaco sida ilaahay uga adagyaha mareexaan ogaadeen uga adagyaha wayna og yihiin wayna ku hurdaan marka mareexaan markay indhaha soo kala qaadeen oo jihaadigtii baxday oo gabre alla naga qaaday farmaaja madaxa agta naga saaray oo iyo far ma qaadi kartaan asagoo ka xishoonaya madaxweynenimadiis laba reeroo daarooda madaxiisa inay ku dirto farmaajo waxba idinkama gelina calaa kulli xaal waa kuu soo wada habar dhegayso laakiin hadda ciidanka markii la geeyey diyaar garow baa jira hadda intaas u dhaafi mahayo waa sir military ciidan mareexaan oon shuqul cid kale ku lahayn ayaa diyaarsan wiigaan hadduu dhammaado insha allah war baad helaysaa habar yar aniga waxaan rabo oon ku weydiinayo waa taas dadkaan farmaajo madaxweyne soomaaliyeed weeye mareexaanna waxa weeye waa inay iska diidaan inuu madaxa uga istaago ummadda ula siman yahay hadduu xaqooda siinaya ha siiyo haddii kale soo ma aha yuu idiin gumaynin cidna ma fahmaysaa cid uu idiin gumeeyey jirin haddii aad rabtaan ina aad wiilashiinu qaarna xabsiga 11 sano ku jiraan kii ka dhaqaaqayana kismaayo lagu dilana dee farmaajo madaxa nooga istaagan dhahaya haddii kale hadda maanta talaad haysataana xabadda bilaaba shiiqaal weydin dhinac bay ka ridaysaa oo cawramada dhinac buu ka ridayaa oo wallaahi oo billaahi iyo tallaahi iyo baajuun dhinac bay ka ridaysaa oo ogaadeenka laftirkiisa dhinac kaga soo ridaya oo wallaahi meel ii banee baa ka dhacaysay ogaadeen baaba naga daran dhibaatada ogaadeenkii jooraha gaartay mareexaan maba gaarin xabadda bilaaba habar yar haddii kale soo waa la bilaabahayaa sorry habar yar waan kugu soo tirtagay habar yar waa la bilaabahayaa insha allahu bishaan oon dhammaan dhexdeeda war farxad laad maqlaysaa intaa uma dhaafayo mareexaan waa diyaar garoobay farmaajaan celin karin ilaahay unbaa celin kara waa dhammaatay dibeed iyo dalla waa la isku xiran yahay hadday dhaqaalo tahay iyo hadday aruursi tahay war iska daaya ariga iyaga maalinkii ya waxaan ku yidhaa NLF markaan u qabay adigu may maqlaysaa horta aad iyo aad baan kuu maqlaa waxaan ku yidhi NLF markaan u qabi jiray inay wadaniyad u daga okay waa mar dambaad hadlaysaa calaa kulli xaal NLF markii aan u qabi jiray wadaniyad inay u dagaalamayso anigu waxaan samayn jiray ilaahay kuma dar 500 baan bixin jiray oo lacagta wadankaana waa $50 ma fahmaysaa bil walba waa la iga qaadi jiray gabar reer isaaqaan saaxiib la aha oo maxaan ku dhahaay aan ku dirsan jiray gabadhaasaa diri jirtay akoonkoodan ku shubi jirnay ma fahmaysaa marka haddii la idin arko adiga oo akoon leh oo guddi dhaqaale leh oo guddi difaac leh oo ciidan leh haddii la idin arko ummadda soomaaliyeed oo dhan oo xorriyadda ummadda soomaaliyeed iyo cadaaladda jecel baa idin caawinaysa ma fahmaysaa oo anigu aan kow ka ahay laakiin adikii baa la idinka baahan yahaa dhaqdhaqaaq dadkiinaan hilbahooda aruursada ogso gabdhihiinna welibana gabdhihiinna firfircoon adigu ka mid tahay gabdhaha u dhexgal dadkan kaanyaanku uu wada dhaawacay oo calooshu ka soo wada jeedo oo beesha mareexaan iyo iskugu jira beelaha kaleeto ee digil iyo mirif ciddu ay rabaan ha aadeen gabdhaha digil iyo mirif oo reergado iyo kuwa maxaan ku dhahaa dir oo reergado iyo kuwa jareer weyne oo reergado adinku waa inaad hormuud u noqotaan oo dadkiina ay laysa iyo kuwa garre xataa oo reergado dadkiina ay kaanyaanku leeyihiin dad badan oo dhaawacaa jira oo gaajaysan haddana roobkii ku kordacay oo guri la'aana waa inaad lacag ayagana u aruurisaan oo aad yeelataan guddi dhaqaale oo dhinaca ammaan ah oo dhinaca maxaan ku dhahaa dhaqaalaha dadka maxaan ku dhahaa la rafaadiyey ah dhammaan waa inaad yeelataan sababtoo afurin baa degantihiin ku soo gabagabee kuna soco habar waad mahadsan tahay hawshaasoo dhan haddaa la baaray laakiin 4 sano oo farmaajo joogay halkaasay nooga qasaarta far ma qaadi kartaan bay ku qasaartay in 5 iyo 6 sano ka horeysana labadaa dawladood iyo al-shabaab baa madaxa mareexaan ka garaacaya reer ka adkaysin badan ba adduunka ma joogo madaxa laga garaacay neef baa loo diiday xataa waa iska noolaadeen waa soo cifteen
marka haddana annagu haddii aanan mar gardarayn oo aanan duulaan ahayn oo aanan horar ahayn dad ehele dhiigooda u hamuunan oo u gaajaysan horta ilaahay baa hadweeye kulay baad dilaysaan xataa oo waxaad dilaysaan ina sayiraada baad dilaysaan oo fartaag baad dilaysaan ehel ogaadeen duulaan laguma ah waxaa duulaan lagu yahay garuubkan dhiig yacabka ah ee dalqalatada kan shiqaaleed baa la dilayaa oo luga dheera ah ee dhiig yacabka iyo gaangiga kulistaha kan mareexaan baa la dilayaa intii la soo safatana waa lagu darayaa meesha qabiil duulaan lagu yahay ma jirto waa laba garuub waa garuub xaqooda raba inay dhacsadaan oo deegaana iyo garuub ku habsaday iyo daba dhilifiyo ay ka kaxaysteen deegaanka oo la shaqeeya inta waa la isku gowracayaa waa saas habar yar anigu hadda anoo gabar mareexaan oo reesada ah anigu qof ogaadeenoon maanta cugdad u qabaa ma jiro sababtoo ogaadeen habar yar jeel ogaadeenna waa ku dulmanaayeen oo gabdhahooda saad ogayd baa iyagoo madheertu uga daadanayso u dhiig baxaya ay xeryaha qaxootiga u imaanayeen waan ooyi jira gabdhaha markaan daawado dhaqaalahana waxbaan ka aruurin jira gabdhaha lagu daaweeyo kuwa jubbooyinka ilaah baan ku dhaartay bal adigu cawliyahan u fiirso waa lafta koobaad oo mareexaan ku xigta oo ugu fara badan oo Soomaalida degta hal biyatooniya dawladda madooba kuma laha biyatooni kuma laha dadkaas waa dulman yihiin waxa ugaaskooda u cararo halka uga ooyaya meesha ku jirta ugaas koofiyad bacluhu samaystay oo la dheer Cumar Xiiray oo caruurtiisa halkaan uga cararay Mareykanka oo ay gaalo ka wada raaceen qaarna xabsiyada ku jiraan oo criminal ugu xiran yihiin hal cunug ma haysta waa gablan camal halkaas odagaa 80 jirka koofiyad beena la saaray sidii gafanihiibu wuxuu ku dul jaqayaa dadka Jubbaland iyo Kismaayo marka hawryar arrintan waa laga baxayaa warna waad maqlaysaa haddii alla idmo aruurintiina waa lagu jiraa hal la adkaysto mareexaantuu soo maray qof soo maray male markii horena hawiye iyo waxa awoodda saaray iyo qoladii caydiid baa inta awoodda saartay mareexaan gobolku degan yahay ay isku riiqdeen mar alla markana anaga iyo hawiye heshiinayna balaayaaba geesta kale nooga soo baxday yaadhig iyo Kenya isu kaay celisay marka dadkan dad nool ma aha markii ugu horeysayna haddana alaytaxaad intaasoo magac leh gobolka gada yimid reerkan ma noolaa ku yiri hilbaa ka nool hadda ma garan way hagaagaysaa weliba anagoo nafsi qabin war waa ku tacsiyeynaya guulayso habar yar macaan aad iyo aad baan naga xumahay arrintaasna anigana wax alla wixii qaaraan ah ama dadkaas Kenyadu laysay wada dhaawaca loo aruurinayo ama loo aruurinayo guddiga difaaca wax alla wixii qaaraan ah nahor gala gabdhihiina welibana firfircoon nahor gale wax alla wixii qaaraan ah hala iga soo doono habar yar gaar baan ku soo messenger-ka ka soo wacaya sax mideeda kale wax allaale dadka midaynta dadka reer Jubbaland ee deegaanka ah ee reer Waama iyo reer Gedo iyo reer Jubbada hoose iyo reer Jubbada dhexe ha laga shaqeeyo dal iyo dabadba sababtoo ah ninkii lala hadlayay waa nin reer ugaas Sharmaaka ah hadhowna 2 saac kadib la dilay ninka la hadlayay nin shaqaal u ahaayo u dhaaranayay oo dilay oo u soo diray nimanka loo soo diray waa niman ogaadeen bay u badan yihiin sida la ii sheegay waa reer Cabdille nimanka loo soo diray hal nin oo shay qaal kuma jirin shanta loo soo diray waa reer Cabdille waa la ii sheegay idagaysa hadda ninka ka tareeya asagana waa nin mareexaana marka taas waa in laga digtoonaadaa inay qabiilada isku diraan ayinku midooba kana soo horjeesta si isku mid ah habar yar taas waxaa kuugu abdaa ugaas qorone ugaaska cawliyahan wixii garab fadhiyay waxay ahaayeen ugaaskii ajuuraan waxaa garab fadhiyay kii muxuu ahaa sheekhaaleed waxaa garab fadhiyay kii digil iyo mirifle waxaa garab fadhiyay kii muxuu ahaa cawramale kii jareer weyne horta Jubbaland waa isku duubanta wax qabiilana ma dhacayso qof reer Jubbaland oo asala oo qaaradda sabanka ku dhashay oo cuqdad loogu dilahay ama qabiil loogu dilaya ma jiro laakiin nimanka soo duulay oo tahriibkii annagay maanta noo taala meel kasto ay galaan xataa haday inta ka qaxaan Kismaayo Kenya galaan Kenya loogu sameeynayaa siday ugu dhiman lahaayeen haday Ethiopia galaan agtar baaba noo soo celinaya ma garat waa siday tahay agtar lama tuso adduunku ugu necab yahay waa nimankii naasaha ka jiray walaalkiis bay xataa dileen
ساس ويه قبيلنا ما في سان وعدو الله ويه عاد بنقول سلام يا هو عدو الله ويه رقي محمد سياد عانا بوراه كو كوريي ويه Soomaaliya ragga u baabaaday weeye sidii loo korinayay maalinkii maxamed siyaad ka soo baxay xamarna waxay u fariisteen baydhabo oo gabdhaha mareexaan oo qaxaya katiinadaha ay ka furanayeen waxaanu sinjiyad ma laha nasabiyad ma laha anigu kolley daarood bay sheeganayaan laakiin wax akhlaaq daarood la xataa ma aha waa dhaqan aanaan arag dad kufsi iyo fuulmo iyo bateri gabar lagu galo akhlaaqdoodu tahay iyo maxaan cunaa ree dhuunta lagu dhufay baa la dhahaa awowgoodna waa kii siistay sonkorta kilalka shanaad oo dhan oo uu yidhi inaabow markii gaaladii tiri xaggee baad raacaysaa ma Soomaaliya qaaradda sabanka ah mise adinkaa gobol laydinka dhigaa eegankada inaabow ha iga reebin biyo qoyska xayle salaase ma garad ilaahay baan kuugu dhaartay nimankan awliyahanka iyo ah reer Soomaaliya iyo xataa kuwa reer Bakool والله إني إسكو دقن إيه إسكو دبيع حتى إنه إسكو قبيل يهين إن هذا مودين أنا قد بدن بصاحب قراءها أنا ألفت مركز شري شرتي وأنا قارئ كل يجي قاعد شري قبل غير ساقها أنا وصاحب لها إلا يهد والله أن وإمقليس هذا ويكون شرتا ماشي مرة ما قاعد إنا شيء والله إنا نبين كل شيء وبالله يطلعه قبل ناس إلهي بان كل نارتي القرآن كي وقبل غير وامع إن هذا مودين إني حتى تنشيط إسكو قليل isku dhaqan ba ma aha isku lahjad ma aha isku dhaqan ma aha isku Soomaali ma aha war dadkaani waa dad waxa weeye dhaqan amxaara leh amxaarada dhaqankaas waxay ka barteen hayle salaasay ka barteen dhaqan xun bay yaqaanaan oo gulnimo ah oo dadka la lafadilo oo dadka la xasuuqo oo waliba qabiil loo fiirin qabiil ama fiiriyaan garuud waxay u shaqeeyaan sida maafiyada Talyaaniga u shaqeeyaan naxariis dhan ma leh bishaaroy maaragtay ninka Kismaayo jooga oo madoow oo odaga hotimaha jilicsan oo lugaha ka jajabiyeen oo caruurta rajooyinka haysta waa reebiciidyahan baa laygu yiri ninkaas wuxuu yiri odaga waa arkay waa reebiciidyahan odagu wuxuu yiri fiiri anigu hadalkiisiba wax iga raaceen wuxuu yiri dadkaanu dad akhlaaq la ma aha dad Soomaaliyana ma aha dhiig Soomaaliyeedna kuma jiro islaamna ma aha nacamti damiirna ma laha dadkaanu inay wax cunaan iyo inay wax kufsan bakod ayaga la soo kufsan jiray waaba sidaasba life-ka haystaan odaag badaba wuu sheega waxaanu islaam ma uu yiri ehelna ma uu yiri nacamti Soomaalida ma damiir Soomaaliyeedna kuma jiro yiri ka warantii kalmad sababta oo looga dheeray wuxuu yiri mareexaan qaylo baa ka soo hartay buu yiri fiiriya baan ku sheegayna wuxuu yiri mareexaan qayla ka soo hartay buu yiri ugaaskiinii baa soo wacay buu yiri oo fartaag baa soo wacay buu yiri oo hebel kala dhowr buu sheegay qayla ka soo hartay buu yiri wallahi bayse waxba iga qaadan cid wax iga qaadaysana ma jirto hadda ninka ka sareeya waa nin mareexanaya waxaana inay madooba ku yiri cidna wax ka qaadi mayso ninkaanu nin maskiina weeye lixda wiil markii la dilay war waa mujrim inda koray waa mujrim maya miskiin waxaan ka wadaa habar yar anigu u naxariisan maayo waaba toogashe waxaan ka wadaa waa miskiin lix wiil ogaadeena inta la hortiisa lagu dilay baa madooba wuxuu yiri sidaasaan atoor u ahay nin ragahaan ahay dadkoo dhan anaa ku korkaaja marka sidaa iiga baqbi ku yiri siilkiya soortana iigu roonow ma garad يدا وركيس آدي آد بنهبة كو سلامة يا خير بدل هايد السيو آدي آد بأدي سلامة يا مروة البوحة نكو علينا يا أنا ما أنت دويت واس كده عادين هي ريرك أوجادين لأنه أوجادين واس كلها لكن أوجادين ماشي ما تشوجو جروب جانج يا تشوجو بين إدي ماشي جاي سكوا هاي الدعاية يو سك فيسبوك سك كشراسو لكن والله أنا بين إدي شيء ogaadeen meesha ma joogo ogaadeen ayaga la laayay Soomaaliyeed ma fahmaysaa war reer Cabdillaah reer luunta lagu go'ad ku haysaan laftirkooda la laayay asaga laayay Axmed Madoobe laayay waa rabbul kacba la dhiibi libaan u ogahay Axmed Madoobe ina ninka la yiraahdo fartaag ninka la yiraahdo ina Sayid Aadan waa isku qabiil qofkii raba marka inuu kala saaro qabiil u kala safto
wallaahi oo billaahi oo tollaahi ayagaad u danays oo ilaahay baan kuugu dhaarta waa waxay rabaan inay ku sii noolaadaan qabiilada inay kala jabshaan oo ay qabiil noqdaan qabiil ma ahan qabiil hadday yihiin ina sayid aadan baa u hiilin lahaa wiilkii mareexaan oo la dilay waa aalkuliste weeye luga dheere ma fahmaysaa ninaan aalkuliste ahayna gaangi maba noqdo ma fahmaysaa nin ogaad fiiri wiilashii ogaadeen oo dhoobley laga keenay oo ree cabdilla leh oo ree isaaq leh oo cawliyahan leh baa waxay u soo carareen balad xaawo maxay ugu soo carareen haddii ay axmed madoobe ay qayr ku og yihiin intay ka soo fakadeen baanyooley bay u yimaadeen mareexaan baa wiilashaas ayagoo cawliyahan leh oo ree cabdilla leh markaasaa kuwii ree cabdillo xataa kilarka ka soo jeeday markay u yimaadeen macallimo intuu dhar u gaday oo lacag siiyey oo u qubeeyey oo dhowr beri baantay buu u gudbiyey maxaan ku dhahaye reerahoodii yiri orda reerihiina aada gaari saar wallaahi inaana been idiin sheegeen wiilashii laga soo qasbay meesha la yidhaahdo dhoobley ee axmed madoobe yiri orda weerara balad xaawo waxay iska soo dhiibeen meesha la yidhaahdo qasab baa lagu soo kiciyey jifa kastay leeyihiin biyamaal baa ku jira wiilasha isa soo dhiibay dir baa ku jirta wiilasha isa soo dhiibay mareexaanka jifooyin kastaa ku jira marka waxaanay qabiil ma yaqaanaan anugu waxaan ka samray wiilka mareexaan maalintii loo dhaaranayay waxaa la yiri mareexaan qaylaa ka soo hadhay cid wax iga qaadaysana male ninka ka sarreeyana waa mareexaan haddaana kuu soo diraya wuxuu yiri awal laguma diline lagumana qaawine haddaan kuu soo dirayaa nimankii ku dili lahaa buu ciidankaad been ka sheegaysa soma haddaan kuu soo dirayaa buu futataag baa soo wacay buu futataag waa ninka maalin walba baarlamaanka dhexdiisa ugaga qaylisha oo dhaha Jubbaland wax la dhaha jira waana wiilu ilma adeer weeye mase adeer buu u yahay waa family day waa hal waa wiil iyo adeerki wiilka la dilay iyo futataag waa wiil iyo adeerki wuxuu yiri futataag baa soo wacay oo qaylinaya waxna igama qaadi karo codkaad ka maqlayseen marka waxaana inaysa qabiil la inoo gaangiyiin taasaad ku ogaanaysaan haddii mareexaan iyo ogaadeen iyo la kala yahay oo meesha nimankan ay qabiil u shaqeeyaan waxa uu ka baqi lahaa luga futataag wuxuu ka baqi lahaa kan mareexaan oo ka sarreeya ilaa asagu waa ka hooseeyaa ninku u dhaaranayana waa mareexaan u leeyahay shartaydaan kugu jijaabanaya haddaan ku dilaya 2 saac kadibna waa dilay marka kan ogaadeenna saasuu u dili doonaa midka mareexaan ina siidaadan wiilka ogaadeen shirkadda haysta ama lacagta haysta iyo kan ma jeerteen saasuu u dilayaa axmed madoobe iyo ayaguna waa isku group ayagaana isku qabiila marka waxaan idin leeyahay qabiilada waama deganow kuwa reer waamahayo idinka raacay jifa kastoo leeyihiin ama ogaadeen haadan ama mareexaan haadan ama shiqala aadan iyo kuwa soo duulay ee jeel ogaadeen dadka ku leyn jiro axmed madoobe ka keensaday jeel ogaadeen intaba isku si u dila weerar duhur iyo casar ku ekeeya nimanka iska cesha haddii kale gunnimo ku dhinta oo maalin walba mid ha la qasho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh